saacadu markay ahayd 5 galabnimo iyo wax googo ah jawiga guud ee degmada Xamrweyne waxa uu ahaa mid si weyn u muujinaya deganaansho xasilooni iyo nabad buuxda mana jirin buuq ah ama sawaxan jahwareer kale oo arqaladeynaya dareenka dadka goobta ku sugnaa goobtu waxay si gaar ah ay ugu taalaa laamiga dheer ee kawaanka kalluunka iyo biyaha dekada yar ee kalluumaysiga halkaas oo bilicda dabiiciga ah iyo neecawda badda ay si wada jir ah ugu abuureen jawi soo jiidasho leh waa meel indhuhu ay ku nastaan qalbigana uu helo xasilooni buuxda dadka goobta joogay waxay ahaayeen kuwo u fadhiya ama u sheekaysanaya koox mid walbana wuxuu ku jiray duruufihiisa nololeed ayagoo si dabiici ah ugu raaxaysanayay waqtiga galabnimo ma jirin qorshe gaar ah ama kulan loo sii ballansanaa balse waxaa si weyn loo dareemayay jawiga degan laftiisa uu ahaa sababta ugu weyn ee dadku isu keentay qof kasta oo goobtaasi yimid waxaa si toos ah u soo jiidanayay xasiloonida iyo nabadda ka jirta taasoo si cad u muujinaysay in nabaddu ay tahay aas-aaska nolol kasta oo qurux badan quruxda iyo bilicda ka muuqata goobtaasi laguma gaari karo nabad la'aan waxaana xaqiiq ah in aan la dafiri karin in nabad la'aani ay tahay nolol la'aan gabagabadii muuqaalkan gaaban ee galabnimo wuxuu fariin muuqata oo caddaynaysa in marka nabaddu ay jirto noloshuna ay yeelanayso macaan qurux badan galab degan oo ka turjumaysa nolosha iyo nabadda Xamrweyne saacadu markay ahayd 5 galabnimo iyo wax googo ah jawiga guud ee degmada Xamrweyne gaar ahaan laamiga dheer ee u dhaxeeya kawaanka kalluunka iyo biyaha dekada yar ee kalluumaysiga waxa uu ahaa mid aad u degan oo xasilooni leh goobtaasi kama muuqan wax buuq ah sawaxan ama walbahaar nololeed oo caqabad ku noqda socodka caadiga ah ee nolosha dadkii halkaasi ku sugnaa waxay ahaayeen kuwo u fadhiya ama u sheekaysanaya koox ayagoo si dabiici ah ugu raaxaysanaya waqtiga galabnimo mana jirin qorshe hore oo loo diyaarinayay ama ujeedo gaar ah oo dadku isu keentay balse waxaa si weyn u soo jiitay jawiga deganaansho iyo nabadda goobta ka jirtay muuqaalkaasi waxuu si cad u soo jiidanayaa bilicda nolosha magaalada markii ay nabaddu jirto neecawda badda ka imaanaysay dhawaqa dabiiciga ee biyaha badda iyo xasiloonida guud waxay ahaayeen kuwo dareen gaar ah ku reebaya qof kasta oo goobtaasi soo maray quruxda iyo bilicda goobtaasi ma ahayn wax iska yimid balse waxay ahaayeen miro ka dhashay nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta magaalada waana xaqiiqo aan la inkiri karin in nabaddu ay tahay tiirka ugu weyn ee nolosha isla markaana aysan jirin nabad la'aan nolol dhammaystiran gabagabadii galabtan degan ee degmada Xamrweyne waxay ahayd sawir nool oo ka turjumaya qiimaha nabadda taasoo suurtagelinaysa in dadku si xor ah u nastaan una wada hadlaan uguna raaxaystaan bilicda nolosha runtii nabad la'aan waa nolol la'aan nabadduna waa iftiinka nolosha bulshada Sergito 5 Somali TV Muqdisho